Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada waa mar kale iyo anigoo ah Cabdullaahi Waqooyi halkaad iga daawanaysaanna waa Waqooyi Tech maanta haddaba waxaan inii wadaa muuqaal cajaa'ib ah oo aad faa'iido badan aad kala kulmi doontaan ama faa'iido badan aad ka heli doontaan muuqaalkeenu waxaanu maanta ku baran doonaa sidaan hore usii shaaciyeyba shanta website ee caalamka ugu weyn ee wax laga barto shantan website hadduu ilaahay yiraahdo mid mid ayaan fiidiyoyo kale ugu sharxi doonaa oo aan inila wadaagi doonaa laakiinse markan si guud ayaan rabaa inaan iniigu sheego in shantan website aad si directi aad wax uga baran kartid waxaad ka maarmi kartaa inaad wax ka baratid jaamacad ama iskuul ama sidoo kale aad wax ka baratid ama college ama sidoo kale macad waad ka maarmaysaa sababtoo ah field kasta oo laga barto jaamacad iskuul hadhihin sidoo kale macad websitedadan ayaad ka helaysaa shantan websitena waxa wax ka dhiga ma ahan rag mastera ama ma ahan rag digriga waa professoro jaamacadaha Harvard University jaamacadaha caalamka ugu tayaysan wax ka dhiga marka waxaan rabaa haddaba inaan mid u dul istaago websitedadan haddaba intaanan dul istaagin saaxiib waxaan kaa rabnaa inaad subscribe noo saartid channelka kambaleelkana furatid kambaleelka markaad saa u furatid badanaa kambaleelka personal oran all day fiidiyoyadana aad daawatid oo like saartid oo asxaabtaadana usii share garaysid haddaba aynu bilown websiteka koowaad ee caalamka wax laga barto waxa la yiraahdaa Coursera waxa aasaasay laba professor oo la yiraahdo Andrew Ng iyo Daphne Colhera waxay aasaasay sanadkii 2012 ayaasan marka waxay isticmaalayaan qaabka la yiraahdo MOOC macnaheedu waxa weeyaan massive open online courses waa qaab adigu koorsooyinka online loogu gudbiyo websitekan haddaba maxaad ka helaysaa websitekan waxaad ka helaysaa only field kasta waad ka helaysaa oo laga barto oo adigu aad doonaysid oo hobbigaaga ah only field kasta oo jaamacad laga bartaan leeyahay sidoo kale waxaad ka helaysaa luqadaha kala duwan English Spanish Chinese Arabic Russian intoona waa ka helaysaa iyagoo waxa weeyaan si dibliya loogu sharaxay marka websitekan laba faa'iido ayaad haystaa mar waxa weeyaan inaad macallin noqotid oo aad casharadan soo gudbisid sidoo kale jaamacadaha dalkeena waxaan oran lahaa inay ku biiraan websitekan maadaama ay badanaaba wax ku soo gudbiyaan jaamacadaha heer caalami intaan anigu websitedadan ku dhex jiray hal cashar oo Soomaaliya oo lagu soo gudbinayo weli ma arkin haddii aan laakiinse baaro waxa laga yaabaa inaan hal iyo laba wax ka badan aanan ka helin Coursera markaa waa aad buu muhiim u yahay halkan explore ay ku qoran tahay ayaad waxaad ka helaysaa dhammaan facultiyada kala duwan aad ka helaysid sidoo kale hoos waxaad ka helaysaa degree caadi ah oo ay jaamacadu bixinayaan hadda Master of Business Administration IMBI waxa weeyaan waa jaamacad heer caalami ah oo bixinaysa masterkaas waa master adigu business administration jaamacad ayaa bixinaysa sidoo kale certificate-da waxa bixinaya IBM waxa weeye waa shirkadda adigu kombiyuutarada miyay samayn jirtay mise adigu waxa IBM baa bixinaysa certificate-ka oo ah data science Google ayaa certificate-da qaar bixinaya oo website-kan aad ka heli kartaa iyagoo online ah lacag ayaad iska bixinaysaa kaliya adigu muhiimadda waxa ka muhiimsan certificate-ka aad helaysid oo heer caalami ah iyo aqoonta aad kala kulmaysid website-ka labaad aynu wareegno website-ka labaad waxa la yiraahdaa Udemy isaga badanaaba websitekan waxa loogu talagalay waxa la yiraahdo graphic design-ka software engineering-ka adigu waa website khaas oo marka dhan loo fiiriyo IT-ga laakiinse marka dhanka kale loo fiiriyana waxaad ka helaysaa field kasta waad ka helaysaa oo aad ka baadhid waa website-ka labaad ee ugu sarreeya ee aad wax ka baran kartid marka websitekan waxa la aasaasay 2010kii adigu waxa aasaasay professoro isku tagay oo markay arkeen inay waxa weeyaan dadku u baahan yihiin koorsooyin online ah bay aasaaseen oo ay ku dhiiradeen inay websitekan aasaasaan websitekan 2018kii waxa ka baxay ama sidoo kale la geliyay 80,000 oo koorso
marka maxaad u malaynaysaa haatan oo 2022 ay dhammaad tahay intee course ku jira malaayiin course ayaa ku jira sidoo kale waxaad ka helaysaa qaab free ayaad u helaysaa koorsooyinkan waxaan rajaynayaa inaan website walba si gooniya aan inagula wadaagi doono website-kan anigu badanaaba dhowr course ayaa iga socdaa halkan aad u jeedaan wuxuu ku leeyahay let's start learning waxa weeye waa koorsooyinka ee socda elementary soo maaragtid waxa weeyaan waa website sida loo sameeyo wax saas marka sida halkan waad aragtaan ilaa adigu 4 course baad ii socdaa kuwa kalena waa ii dhamaadeen marka anigu badanaha waxaan IT-ga iyo sidoo kale graphic design-ka aan ka bartay ama video editing-ka waa website-kan waa website heer caalami ah koorsada free-ga aad ka heshid waxay ka qiimo badan tahay jaamacad kamida jaamacadaha Soomaaliya koorso ay ku siinayso badanaaba jaamacadaheena Soomaaliya ma bixiyaan graphic design-ka haday bixiyaan waxay bixiyaan kaliya Photoshop-ka marka adaa laga rabaa inaad website-dada inta soo gashid koorsooyinka kala duwan aad raadsatid oo aad halkan wax ka baratid website-kana si gooni ayaan inagula wadaagi doonaa sida loo isticmaalo sida looga raadsado koorsooyinka free-ga marka insha Allah fiidiyowyada dambe ayaan inagu soo gudbinaya website-ka kaalin saddexaad galay waxa la yiraahdaa ADX waxa aasaasay iyadana shirkad sanadkii 2012 ayaa aasaastay shirkadan oo kaashanaysa Harvard University qoraalkan halkan aad ka arkaysaan ayaan waxaan soo dhigayaa page-kayga waqooyi tech haduu Ilaahay yiraahdo marka iyadoo faahfaahsan ayaad akhrisanaysaan haduu Ilaahay yiraahdo marka Harvard University ayay kaashanaysay shirkadu ADX markay aasaasisay badanaaba waxaad ka helaysaa waxyaalaha aadka u muhiim ah waxa kamid ah luqadaha physics-ka chemistry-ga iyo sidoo kale education-ka kala duwan ee caalamka laga dhigto waxbarashada kala duwan hadda waad aragtaan jaamacadaha halka ka baxa listiga waa Harvard Berkeley Boston waa jaamacadaha caalamka ugu tayada badan ee adduunka wax laga barto Australia National University marka jaamacadahan laftirkeedu waxa laga rabaa inay ku biiraan oo jaamacadaha ay ka mid noqdaan oo meesha laga arko oo ardayda Soomaaliyeed ay si online wax uga la socdaan qaab kalena waa u gudbin karaan qaabkay rabaan u gudbin karaan marka badanaa website-dadan waxaad ka helaysaa adigu degree caadi ah oo online ah koorsooyin waxaad ka helaysaa certificate-yo waxa kaliya lagaga baahan yahay website-dada oo dhan waxa kamid ah inaad iska register garaysid si free weeyaan register-koodu haddaba website-ka kaalinta afraad ayaynu u gudbaynaa waxa la yiraahdaa website-kan Khan Academy badanaaba waxa wax laga bartaa waxa weeyaan waa casharada iskuulada isagu wuxuu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay ID card waa inaad leedahay oo aad ku soo galaysid koorsada ID card-ka haddii aadan haysan ma soo gali kartid koorsada sidoo kale website-kan waxa lagu khaldaa Khan Academy marka la arko inuu aasaasay Salman Khan laakiinse waxa aasaasay ninka halkan inaga muuqda ninkan yar Khan Salman Khan waa la yiraahdaa laakiinse isku mid ma ahan badanaaba isagu wuxuu ku noolaa noloshiisa ku soo qaatay wadanka Ingiriiska halkaasuba ku dhashay 44 jir weeyaan marka ma aha Salman Khan inuu aasaasay isagu waxaan u maleynayaa master inuu ka qaatay qaybta jaamacadda Harvard marka gabanka yar wuxuu u aasaasay ardayda iskuulka markay arkeen inay ku dhiban yihiin aanay haysan meel ay casharada education kala socdaan ayaan dhaweyd waxaan arkayay kuwa Soomaaliya oo laftirkoodu ku gudbinaya casharo Khan Academy sida aan u maleynayay Khan Academy sidoo kale waxaad kala socon kartaa ama aad ka heli kartaa application-ka mobilada waa ku jiraan Khan Academy mobilkaaga ayaad furanaysaa halkaas ayaad kala soconaysaa dhammaan website-dadan aan inii sheegayo waxay leeyihiin application-no u khaas ah oo mobilada aad kala socon kartid maadaama ay kala jiraan desktop iyo waxa weeyaan laptop iyo waxaan la yiraahdo smartphone-ku marka waa qayb kamid ah waa qaybta ugu muhiimsan ee xoogga saaraan product-yada markay soo saaraan website-dada wax laga barto waa meesha ugu weyn ee xoogga saaraan marka halkan waxa laga yaabaa inaadan si faa'iido leh aan wax uga helin laakiinse mobilkaaga markaad soo qaadatid oo application-kooda furtid inaad faa'iidooyin aad u tiro badan ka heshid website-ka ugu dambeeya waxa la yiraahdaa Landa website-kan waa website isaguna professional ah
waxaad ka helaysaa koorsooyin qaar free marka waa shirkad baa aasaastay laakiinse isagu badanaa wuxuu kugu xirayaa Linkledka waa inaad Linked leedahay halkaas iska diiwaan gelisaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo lagaga baahan yahay waan idinla soo socodsiin doonaa anigoo si deeply website kasta uga hadlaya marka muhiimaddu waxay tahay inaad website-dadan aad gashaan ogaataan baan anigu hadda rabay laakiinse si kala duwan ayaa wax looga bartaa mid kasta si gooniya ayaa wax looga bartaa isku mid maahan Coursera si gooniya Udemy anigu website-ka ugu fiican oo aan si fiican wax casharo uga raacday si free aan wax lacag ahayn waa Udemy videoga xigana waxaan rabaa inaan Udemy caadi inagula wadaago oo aan si caadi isaga inigu soo tabiyo hadduu ilaahay raali ka noqdo marka waa muhiim inaad website-dadan war ka haysaan oo aad la socotaan siiba ardayda iskuulada waxaan kula talin lahaa inay Khan Academy si fiican ula socdaan sababtoo waxaa laga helayaa ayaan hore waxaan arkayay markaan mobilkayga furay isagoo waxaan ka helay casharo aad u tiro badan oo free oo ah physics chemistry math computer intii scientific oo dhan ayaad ka helaysaa marka intaas ayaan jeclaan lahaa inaan iskaga joojiyo videogan si aanu inoogu dheeraan marka waxaan ka codsan booqatid waqooyi teach oo aad subscribe ka saartid haddii aad ku cusubtay weeyaan haddii kalena like iyo share taba inaad naga gejisaan oo aad asxaabta kala duwan usii share garaysaan waadna ku mahadsantihiin la socodka aad la socotaan badanaa anigu waxaan rabaa inaan ila wadaago wax idinka faa'iideynaya waxaad meel ku gaari kartaan berri waxaad wax weeyaan allahu mustacaan ay noqon karto inaad waxun ka faa'iideed haba yaraatee haba ahaatee hal xaraf marka insha Allah waynu isla socon doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo intaasaan ku joojinayaa videoga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu